Waxaan ahaa mid ka shaqeeya buufinta cayayaannada. Waxay ahayd shaqadaas mid aad u adag maadaama aan 24 saacba ku dhex jiri jiray buufinta cayayaanno iyo kiimiko. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa kool soo wacay waxaana la yidhi meel imow. Meeshaasna waxay ahayd meel magaalada ka yara baxsan kuna taala meel beera ah. Gurigaas waxa uu ahaa guri meel cidlaha ku yaala. Markii aan soo gaaray waxaan bilaabay inaan albaabkii gargaraaco albaabka gargaraaco balse cidna igama furin ilaa ugu dambeyn aan gacanta ku gargaraacay oo aan maqlay qof haweeney ah oo soo socota oo ilaa waan soo socdaa isu. Waxayna weydiisay ma waxaa tahay ninkii cayayaanka buufinayay? Haa ayaan ku dhahay soo dhow ayay igu tiri. Gudaha ayaan guriga soo galay. Guriga waxa uu ahaa mid aad u uraayo aadna u qaab daran. Waxay igu tiri waxaan rabay inaan keligay aan nadiifsado balse waan awoodi waayay inay igu adkaatay. Saas darteed ayaan kuugu wacday adiga. Dhib ma lahan midas aniga ay hooshayda tahay ayaan ku dhahay. Albaab geeska ah waxaan ka maqlay qaylo. Waxayna igu tiri iska dhaaf waayaan yar oo aniga aan leeyahay. Waxaan rabtaa inaan banaan ku soo baxdo waxaan laga yaabaa inay gaajayso. Isku mashquulinin. Waxaan soo gaaranay jikadii naagta. Waxaana arkay jikadu inay tahay mid aan dhammaystirnayn sidoo kalena aad u qaab daran tahay aadna ay u urayso. Xayawaano badan oo xasharaad ana meesha ay wareegayaan. Waxba kamaana soo qaadin maadaama ayba shaqadeedu tahay inaan cayayaanadaas aan baabi'iyo. Waxaana la soo baxay baashii aan ku baabi'inayay ama suntii. Markiiba waxaan bilaabay inaan buufiyo balse naagtii ma haysan ahayn mid aniga iga dul tagtay oo waa ay i kor taagneyd intaas aan buufinayo. Waxaan weydiiyey iyada inay keligeed nooshahay. Waxayna igu tiri haa keligay ayaan noolahay weligiina maanan guursanin mana u malaynayo inuu jiro qof aniga ila noolaan karo. Waxaan weydiiyey maxaa ka wadaa? Waxayna igu tiri aniga waxaan ahay qof fanka ku xeel dheer mana u malaynayo inuu jiro qof i fahmayo. Aniga aad ayaan la yaabay dhaqamadeeda. Waxaana jiray guriga waxyaabo la yaab leh oo kasoo uraayo. Waxaana weydiiyey qolkeeda meesha uu ku yaalo. Waxayna ii tilmaamtay qaybta hoose. Waan soo baxay waxaana soo aaday dhankii iyo qolkii ay ii tilmaamtay isna waxaan arkay musqusha qolka inay aad u qaab daran tahay. Baasheedii ayaan iskala soo baxay anigoo yaaban. Waxaana meesha ku arkay maqaar xayawaano oo aad u tiro badan oo meesha ku jiro oo weliba dixiri u galay uu dixiri cunayo. Anigii intaan labalabooday ayaan soo cararay. Waxaana soo aaday dhankaas iyo qolka kaleeto. Albaabka ayaan furis maagay misana albaabkii maba furmaayo. Waan yaabay misana maxaa khaldan. Waxaana fiiriyay gurigii waxaana soo xasuustay hadalkii ay dhees oo ahaa ma jiro cid aniga i fahmaysa. Yaab ayay igu noqotay gurigaana waxaan la yaabay qaabka uu u samaysan yahay. Waxaana maqlay shanqar. Waxaana fiiriyay meesha markii hore waxba kamaanan arkin oo furaha yariiska ah meesha mugdi oo kaliya aan ka arkay ilaa ugu dambeyntii il qof ee meesha u soo istaagtay oo qof soo fiirinaya aan arkay. Anigii waan naxay. Waxaana maqlay qofka inuu dhahay ya caawi. Waxaan aadayna wax ka khaldan misana hal mar ayaan waxaan ka weeraray joog madaxa la igaga dhuftay iyo anigii oo miir daboolmay gibi ahaanteedaba. Waxaan ku soo kacay aniga oo ku xirxiran kursi weliba anoo aad u wareersan. Horteedana waxaa markaas fadhiyay ninkii meesha ka hadlayay oo aad moodo iskooba loo labisay. Ninkaa bini aadanba uma uusa i keenay isaga qaab darridiisa. Guriga waxaa ku sharaxnaa xayawaano maqaaradooda qoorahooda iyo waxyaabo aad u tiro badan. Waxaana dareemay naagtan inaysan ahayn naag caadiya oo naag wax ka khaldan yihiin ay tahay. Isla markii waxay bilowday inay tinta iska bixiso misna wixii iigu naxdinta badnaa iigu yaabka badnaa waxay ahayd markii aan ogaaday in qofkan haysta aysan ahayn naag uu ahaa nin iska dhigaya naag taasoo uu isaga ku qaraabto. Wuxuuna yidhi aniga ma ihi naag waxaan aad u xiiseeyaa inaan dadkan maqaarkooda aan iskala baxo. Waxayna igu tiri kaale gadaashaada mar fiiri. Gadaal haddii aan fiiriyay waxaan arkay wax ka daran wixii horeeto. Waxaana arkay dad badan maqaaradooda oo lagu naqshadeeyay geedo iyo waxyaabo qaab daran. Waxyaabaha maqaarkooda wuxuu ahaa mid saxan laakiin waxyaabaha hoos looga naqshadeeyay ayaa ah waxyaabo ka duwan. Xayawaano tiro badan xitaa bini aadam 3 qof ayaa meesha taagnaa.
dadkaas ma ahayn dad caadiya balse waxay ahaayeen dad maqaar bini aadam lagu naqshadeeyey. waxayna igu tiri kan waa nolosheeda saxda ah, aad ayaan oga helaa inaan maqaarka bini aadamka ku ciyaaro oo aan ku naqshadeeyo. kanna wuxuu ahaa naqshadii igu dambeysay oo waxay ka wadaa wiilka halka il banaanka kasoo taalo. naqshadii ugu dambeysay oo aan sameeyay ayuu ahaa. markiiba waxay bilowday inay baton taabato, waxaana bilaabay ninkii inay korontii wax ku dhadhagto. ninkiina uu adkeysan waa maadaama awalba uu jirkiisa mid daciifa uu ahaa. halkii ayuuna ku nafbaxay oo ninkii waa ugu dhintay aniga oo u jeeda. waxayna ku tiri ama wuxuu ku yidhi waxaa aad igu soo carfaya maqaarkaaga caraftiisa. waxayna soo qaadatay baallada qoorta loogu xiro eeyaasha ama xariga eeyaasha qoorta loogu xiro. aniga waxaan ku yidhi laxba ayaan kaa codsanaya, waxaa rabtaan kuu samaynayaa bis waxaa ii ogolaataa inaan xaaskayga la hadlo hal mar oo keliya. waxayna ku tiri okay waan ku ogolaanayaa middaas. waxay soo qabatay boorsadeedii balse aniga xaas maba aan lahayn ee meesha waxaan ka wata qorsho, weligeena xaas maana guursanin. waxayna igu tiri horta boorsada iyo mindi iyo qori iyo waxinaa weytada laga yaaba aan ka fiiriya. wuxuuna ku dhahay maxaan oga baahanaya mindiyo xaas ma u baahnin mana rabo. balse meesha waxaa igu jirtay baashii yaama kiimikadii. markii waxaa ma jirin meeshu kiimikadii oo dhaxda kala shugay meeshii ayuuna ku dhacday ama uu ku dhacay ninkii. indhaha ayay xoqanaysay, indhaha ayayna ka gubatay. anigii mar rabbi intaan bartaasoo dhaha oo aan soo cararay ayaan qaybta kore soo kareen. markiina waxaan ka booday kolkaa masaaqada ayaan kasoo booday, gaarigayga ayaan kacsaday. markii waxaan arkay albaabka guriga oo isfuray. waa la yaabay misana ninkii ayaa banaanku usoo baxay oo hal il oo idil ayaa gubatay oo milamtay. isaga way maxsalaameynayay. aad ayaan ula yaabay dhacdaas. waxayna ahayd maalinkii ugu dambeysay oo aan meeshaas tago. dib dambena meeshaas uma aanan aadin. maalinkaas ayaan ugu dambeysay. booliis iyo waxaasna holiis maanan gelin. faraha ayaana ka qaaday oo halkaas ayay sheekada igu ekatay. haddii aad intaan kala soo gaartay waxaan ku leeyahay inaad soo gaartay. sidoo kale